بسم الله الرحمن الرحيم نبض وديال عيد وناكسن waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xogta wararka ee TV-ga Banaadir qodobada aan idinkugu hayo hadii ay baqadar idinkuna aad ku daawan doontaan waxa kamid ah sidee looga ciiday wadankaasi Mareykanka gaar ahaan Soomaalida joogto wadankaasi Hong Kong waxa ay cabasho ka muujinaysaa iyo walaac arrimaha doorashooyinka ee wadankeeda iyo waliba halista COVID-19 Baghdad waxa ay ka cabanaysaa kuleel daran oo dadku ay la ildaran yihiin sidoo kale Daily Nation waxa ay baaritaan ku sameysay muwaadiniinta China ee jooga wadankaasi Kenya qaybaha dambe ee barnaamijka waxaad ku daawan doontaan arrimihii ciyaaraha iyo saadaasha waa mar kale iyo xogta wararka daawadayaal isku soo noqdo wanaagsan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 1 bisha Agoosto ee 8 sanadkuna waa 2020 aynu ku bilownay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Mareykanka qaarkood magaalooyinka qaarkood ayaa shalay waxa looga ciiday tiro aad u yar ayadoo dadku ay sameynayeen tilmaamaha hay'adaha caafimaadku ay horay u soo gudbiyeen oo ah tilmaanta kala fogaashada iyo in aan la islaamin sidoo kale waxa muuqaalada laga dheehan karay in dadku ay aad u kala fogaayeen isla markaasina aanay isku marxabeeynin sidii sanadkii hore ay u faraxsanaayeen isla markaasina ay isku marxabeynayeen sidoo kale waxa kaloo jira in dawladda Mareykanka shalay ay ka digtay in muslimiinta ku ciidaya wadankaasi Mareykanka ay isu imaatin sameeyaan balse garoon weyn oo lagu dukado salaada oo ku yaala magaalada Minneapolis ayaa waxa la sheegay in ay ku dukadeen dad aad u tiro yar iyadoo sanadkii horena muuqaalo laga baahiyay ay hayeen kuwa aad u tiro badan waxa daawadayaal qodobo ay kamid yihiin warbixin ay ka sameysay Daily Nation muwaadiniinta China ee ku sugan wadanka Kenya ayaa inoo soo socda balse iminka aynu Iraq magaalada Baghdad ee xarunta u ah wadankaasi Iraq waxa dadka ku dhaqan ay ka cabanayaan kuleyl daran oo barihii ugu dambeeyay iyo isbuucidii ugu dambeeyay ka jira dalkaasi Iraq sidoo kale dawladda Iraq waxa ay sheegtay in heerkulka wadankaasi uu gaarayo 51 centigrade arbacada la soo dhaafay sidoo kale wararku waxa intaas ku darayaan in dadka qaarkood ay nasiino iyo gabad u doonteen wadamada dariska ah iyagoo ka cabanaya kuleelka daran ee ka jira wadankaasi Iraq daawadayaal iminkana aynu eegno Hong Kong waxa ay walaac ka muujinaysaa xaaladda arrimaha doorashooyinka ee Hong Kong iyo halista COVID-19 oo iminkaba la tilmaamayo in uu ku sii laba kacleeyay wadamo fara badan oo ka tirsan caalamka Hong Kong waxa ay sheegtay in ay macquul noqon doonto in dib loo dhigo arrimaha doorashooyinka ee la rabay inay qabsoomaan bisha December ee foodo inagu soo haysto daawadayaal qaybtii dambe ee barnaamijkeena ayuu isla soo gaarnay iminkana aynu eegno Daily Nation wargeyska Daily Nation baaritaan uu ku sameeyay muwaadiniinta jooga wadankaasi Kenya waxaana uu sheegay in muwaadiniinta China ee jooga wadankaasi Kenya ay rabaan in si fudud inay uga baxaan wadankaasi Kenya ayagoo sheegay in uu ku soo beegmayo xilli wadanka Kenya uu hawada u furayo duulimaadyadiisa caalamiga ah sidoo kale muwaadiniinta China waxa ay sheegeen in aysan rabin inay ku nagaadaan wadankani Kenya isla markaasina ay u hiloobeen wadankooda China inkastoo ay ka jirto khatarta halista caafimaadka ee COVID-19 waxay daawadayaal qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena ayuu isla soo gaarnay iminka waxaynu eegnaa xubnihii ciyaaraha iyo waliba saadaasha hawada aynu ku horeynaa caawa waxa dhici doona kulan adag oo u dhaxeeya kooxaha waaweyn ee Arsenal iyo waliba Blues waxaana uu ka dhici doona garoonka Wembley sidoo kale ciyaartan waxa waa final isla markaasina Arsenal waxa ay difaacanaysaa booskoodii hore oo finalkii sanadkii hore looga badiyay finalka sidoo kale ciyaartan caawa ma aha sida sanadkii hore oo ma laha xamaasad gooniya maadaama ay taageerayaasha garoonka ka maqan yihiin isla markaasina laga cabsi qabo halista COVID-19 sidoo kale Arsenal iyo Blues waa laba kooxood oo derbiya isla markaasina midka kale uu ka ilaashanayo in goosha uu soo taabto laakiin daawadayaal iminkana aynu eegno xubinta ugu dambaysa barnaamijkeena xogta wararka ah xubinta saadaasha hawada aynu ku bilownay magaalada Muqdisho waa maanta waa 26 centigrade qoraxdan waxa ay soo baxday 5:59 waxaana la filayaa in dhacdo 6:10 daqiiqo xilliga magaalada Muqdisho sidoo kale Hargeysa heerkulkeedu maanta waa 28 centigrade waxaana qoraxda soo ay soo baxday 5:54 daqiiqo waxaana la filayaa inay dhacdo 8:10 daqiiqo insha Allah sidoo kale Kismaayo 6:10 daqiiqo ay qoraxda soo baxday waxaana la filayaa inay dhacdo 17:09 daqiiqo heerkulka saakay Kismaayana waxa la tilmaamayaa inuu yahay 30 degree centigrade Bahagaag daawadayaal guud ahaan barnaamijkeena xogta wararka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaana xusid mudan inaad naga baaran kartaan cid allaale cid warkeen uu dhaafo baraha Twitterka YouTube Facebook iyo inta kale aynu ku leenahay internetka waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo inta laga gaariyo Britole